halka waxa nooga soo baxday in runtii ay khatar ku jirto arinta kaabsan haamaha shidaalku waayo hadii uu cadow badan jiro oo markaa ka faa'iideysan kara shirkadahan ku baho meesha oo intooda badan aan laba hayninba yaa la saamiyaasha shirkadahan xagee ka soo jeeda magacadoodii aan lahayn oo shiraan markaan ku guuldarsatay Barbara Oil Group inay sheegaan waayo xogta aanu hayn waxa kamid ahayd in shirkada loo yaqaano Some Oil in uu wasaaraha dalka Soomaaliya inuu shirku ku leeyahay taasina khatar ku tahay qarankan marka waxa loo baahan yahay runtii waayo hadii maanta la doonayo in laga aafiyo maxaa shidaalka waxa si dib yar lagu shubi kara haamaha waxaan tayo sareen si maamulka dawladda ay barinta looga caabinayay in sha aan ficnaan in haamaha lagu soo leebiyay ayaan tadawriga hore muu ahayn mid shaqadiisa gutay waxa mid shaqadiisa aafiyay oo runtii aan waxa warqad qoraal ka qornay oo lagu gudbay madaxweynaha hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siraayo waxa laga qabto jirta imikana marka laga xeerka cusub ee la sameeyay loo sameeyay tadawraha guud yaa anagu wada shaqeyn fiican baan leenahay ilaa hadda shaqada waan socotaa waxaan doonayaa insha Allah taala in wax weyn ka bedelo arinta waa dhabna xukuumadda waxa sheegaya hadaan qof loo xidhin musuqmaasuq waxa ma jirto wax kale hal noqonaya